السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة قيمة يقدرين تمضان أدبان دي سلام يا ميل كستو ضافة عالم كاد كجوكتان سودوا صاحب يال هرالو يري قد سريت حقودين حدا قدنا حديرين كدعي دون تدام أوجده وفاميل لمسترن وهويو أبو يتضبع عرور أباها سيدا عادي نور المعلومات كشقدي سأيو صبحي أوهاجرا subaxii markii la gaaray oo gaarigiisa soo qaatay wadada wuxuu kala kulmay mid kamid ah gabdhahaas xilligan u baahan tahay caawimaad uur ay leedahay fooshi ayaana heesa waxay ka codsatay inuu isbitaalka geeyo gabadhii ayuu soo kaxiyay isbitaalkii ayuu geeyay isbitaalkii markii uu geeyay ayuu haddana wuxuu waayay qof caawin kara ilaa asaga mooyaane qof dhakhtarkii la hadla maadaama gabadhu tahay nolol iyo geeri xaaladeedu xun tahay xanuun badan haayo cid caawisan u baahan tahay wuxuu sir bal si caawi dhaqaatiirtii la hadlay wixii lacag loo baahnay ayuu ballan qaaday hadduu dhiibi lahaa iyo hadduu ballan qaadi lahayba gabadhii ugu dambeyn waa ay dhashay ilmo caafimaad qaba ayay dhashay mar allaala markay dhashay ayuu damcay inuu isbitaalka uga soo tago waxay ku tiri walaal dhageyso aniga kaliya ayaan ahay isbitaalkan halkaan ma degani waxaan rabaa isbitaalka inaad iga saarto cunugii ayuu sidii u soo kaxistay waliba gacnihiisa ayuu ku soo qaaday gaarigii markii uu keenay ayuu wuxuu yiri xageen ku geeyaa markaas ayuu ku tiri halkaan safar ayaan ku ahay cidina iima joogto ee gurigaaga igey ee martisoor maalmaha yar kadib markii aan fiicnaado aniga ayaaba tagi doono ilmaheygana kaxeysan doonee waayaha ayuu ku yiri waayo wada kale u furneed malahan gaariga markuu ayr socdo ayuu wuxuu ku tiri sug inta ayaan wax ka soo qaadanayaa gaariga jooji gaarigii ayay cunugu dhex tagtay halku isla haday soo naqanaysaane waqti badan ayay ku qaadatay saacado wax soo socda malahan wuxuu yaqiinsaday in hooyada cunuga ay kaga dhuumatay ninka cunugii soo qaatay si toosan gurigiisa u soo abaaray maadaama uu yahay nin family xaasi carruur leh wuxuu siri xalka kaliya ee aad ku xalin karto inaad xaaskaaga la tashato una geyso cunugii markuu u geeyay qisadii ku dhacdayna uu la wadaagay ay ku tiri waxa tahay turufatoor been low cunugan adiga ayaa dhalay naagtii dhashaana kugu soo tuurtay hal aad guriga ku keentan wuxuu dhaqday inaad tiraahdo cunugan waa laga dhuntay ee hadii ay dhab ka tahay iyo hadii dhalanteed ka tahayba DNA ayaa inoo balan ah si aan u xaqiijino inaad adiga aabbo tahay in hadalka sheegayso run yahay okay yiri waayo nin wax isku og ma ahan ugu dambeyn isbitaalka ayaa la tagay mar rabo inaan warka idinku badiyo sheekada sidee tahay waxa laga yaabaa inaan idinku sharaxin bal gabadhan xog ogaal ah sheekada bilaaw ilaa dhamaad la socotay bal ayada aan isaga keen dhaxbaxo ay noo sharaxdo adduunyada wax kasta waa ka dhacaan gabadha halkii iraadinaysay iyo wixii soo baxayna waa kaaf iyo kala dheeri gabadhan waxay tir cunuga adiga dhalay DNA-ga waa inaan ku qanacnaa maxaa soo bixi doona isleeda ma asaga ayaa aabbo u ah ayaad isleeda aniga sheekadan bilowgeeda waan la yaabay laakiin waxa soo baxday sheeko kale oo halkiiba oolinba gabagabadeedana ee naxdin uur ku taalo iyo murugo ay xambaarsan tahay balans la daawana yaan war idinku dilin war dumaro waan waa idin sheegay ragina challenge-ga kula jirtaan joojiya akhrana wala isku cadaabaya oo rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qof haduu qof maanta u sujuudayo waxaan dhihi lahaa gabadhu ninkeeda u sujuudo misana ninku naagtiisa u sujuuday aanu garanamahay cilmiga amalihi badaha ay gelinina maalmaha kamida nin baa soo baxay asoo gaari wata oo jidka marayay qof dabar jidku istaagtay qoftii dumarayd uu qaaday waxay tiri walaal qaad markuu qaadaha way xageen ku geeyaa waxa hospitaalka lagu leexiyay hospitaalkii markuu saas u galay riduu galay xatir wala iga hadhay waan foolanaya kaligeena waan ahay okay wuu ka soo dhaliyay waa qarashkii wixii uu ka bixiyay mas'uul buu ka noqday ilaahay baa u soo diray ilaa ilmihi yara markay dhashay gabadhii waxay tiri walaal iga tagin hospitaalka iga tagin ay qaad xageen ku geeyaa gurigaaga igee meel aan aadamaba haystaba qof marti oo magaalada marti ku ah misaasaha soo bax buureeyay cunug yaraa soo dabuubay dabuubad garanaysan ilmaha markii la dhalo waa la soo dabuubay baa la dhamaa macna saas loo qaadayo sidaas cunug marka uu qaaday sida dabuub la dhaha uu soo qaaday gaarigii buu soo dhex fadhiisay waxay tiri walaal halkan wax ka soo qabsanaya ilmaha yar ii hay
wuxuu mal baaba tahay wax badan ma soo qabsan kartid bal soo dhaqso waayahay wuu qaaday ilmihii yaraabu meeshii dhigay ayadana banaanka u baxday gaadhigii bay ka degtay qoftii ninkii kuma soo laabaneen fiiriyaa mucjisada meesha ka dhacayso way baxday way iska maqnayd markuu waayay buu soo baxay ilmihii yaraa asagoo sidii uu wada buu xaaskiisii ninkii u geeyay markaasaa waxay tidhi wuxuu yidhi cunugaa yarkaa sidaasaa igu dhacday oo waa la iga cararay xaaskiisii buu u geeyay macnaha marwadiisii qof walba markuu rintaa kasoo galo dee xaaskiisu dhibaatada la wadaagaya naa qof yaa dhibaatadaas igu dhacday maanta sheekadii buu ka shekiyey waxay tidhi been baad ii sheegaysaa cunuga yarka adaa dhalay oo waa lagu soo tuuray markaasaa waxay tidhi kuma aaminayo ee cunuga inaad dhashay aan baadhno oo dnaga ka baadhno waa la baadhay markii la baadhay baartii waani baartuu ma ka dhigaa sheekada way dheer tahay soo idin dhamay hal mar idin dhamaynaya waa sheeko macaan wallaahi waa la baadhay sheekadii meeshii waxaa kasoo bixi doonta qiso aada iyo aada u xanuun badan waxuu yidhi makanad iga baadhaysaa haa hal la baadhuu yidhi waan ku kalsoona aniga inaan cunugaan dhalin waa la baadhay cunuga isagu ma dhalin okay kuwa kalena waxaa la yidhi baadhitaana lagu sameeya maya waayahay adiga ninkii baa la baadhay marka ileen qofka bini aadamka markii baadhitaanka lagu sameynayo asagana gooniyaa loo baadhayaa labadii dhiigna waa laysu baadhayaa ninkan waxaa soo baxday inuusan weligii dhalin weligiiba ninkaana inuu madhalo yahay oo mandhaleys yahay laakiin faamilka macnaha ay yihiin laba ilmaha asaga u dhalay iyo asaga inay yihiin family baa soo baxday laakiin ilmihiisi exactly ilmuhu asaga dhalay ma aha ilmihii baa la baadhay kulli waxaa dhashay kuma jira ciyaalka laakiin qof kale ayaa dhalay qofkiyaa la baadhay ayadiyaa la wareystay waxaa la yidhi sidani maxay ku dhacday inkaad qabto adaaba mideeda kale baadhitaanka la imaaday hadaabaad isubtid ood adiga ilmaha inaad dhashay iyo inaada dhalin aada shiki kaaga jiro adigu wax og tahay macnaha ilan hooyaata ninku kuma dhaaran karaa ilmihiisa inuu dhalay laakiin xaasku way ku dhaaran kartaa inay iyadu dhashay maxaad sababtaan maxaad u samaysaa layidhi oo maxaa badaha ku geliyay oo hoogto bada mashquulkan maxaa ku geliyay waxay tidhi anigu sheekadan anaa sameeyey tidhi laakiin ninka waan jeclaan jiray tidhi inaan noloshiisa ka dhamaada ma rabin walaalkiis oo xaafadda iigu keenay baa jiray oo xaafadda ha ka cunteeyo ha seexday idhihi jiray walaalkiisa anbaa iga dhali jiray tidhi ninkale inuusan ilmaha dhalinna aniga waan ogaa masaas ahaa oo 67 ciyaala adiga maba kaa dhalinba waan ogaaba tiri anigu maba iga dhalinba ninkan masaas ahaa haye wuxuu yidhi anigu waan kaa tegayaay ilmahan iyo walaalkay iyo adiga iyo sheekadan isku qasan dhiiqadan waan ka dhexbaxaya waan baxayaa walaali macaanay mac salaamo waan ku fasaxay adigana waad fasaxday hadda kulli waxba iskuguma keen harin intaasoo sanad soo qiyaamaysay mac salaamo dhahay la ilmi yaraa la kurinay meesha maba taala waqti qisa ka weynaya maatay ninkii asagoo safar u baxayo oo meelaha Sacuudiga waag hor la aadi jiray Sacuudiga meelaha u sii socdo bay baasaboorka naagta ka jeexjeexday baasaboorka uu ku dhoofi lahaa oo wadan kale ku aadi lahaa bay intay qabatay masiibadii dhowr iyo 10 sano ninkan soo qiyaamaysay buu basharci ka jeexjeexday uu soo baxay baasiin uu soo gatay walaalkii iyo ilmihii uu dhalay iyo ayadii iyo gurigii iyo asagiiba intuu gaas ku bilbilay buu sidii ku gubtay marka waxa farfaadina dumaro waxba warmaysaane waa la isku baaba waa la rugmad dad ma dhaqna meeshan waxaa meeshan fiiri 7 ciyaaleed iyo xitaa cunug yaray gabadhi dhashay ku soo aameensatay ninkii kale iyo naagtii reerkii daba waliga waxaan maqli jiray qabi hadhacdo qiyaamana haduu ma qoysnayo harina qacda waaga labadeena qoys ay soo qaataan gabayga habay soo dhacaa ooge wallahi bilaa wala yaab markaa dumar raggan challenge-ga kula jirtaan joojiya isku taagtaagaysa waa sheeko aad iyo aad u xanuun badan waa qiso runtii wacyi iyo waana ugu filan guud ahaan dadka dhaqamada noocan oo kale leh hore loo yiri god sireed ha qodin hadaa qodan ha dheereen ku dhici doontida lama oga cunug oo meel ka soo qaaday ay ku tiri adiga ayaa dhalay waliba naagta ayaa kugu soo tuurtay ayadana 7 ilmo waxa ka dhalay ninka ay nolosha la wadaagtay walaalkeed inna lillaah wa inna ilayhi raaji'un inna lillaah wa inna ilayhi raaji'un waa dhacdo aad u xanuun badan
reerkaas dhan noloshoodii waxaa galaafatay cunugaas yar ee hooyadii soo tuurtay ee guriga la keenay. waxaa halkaasi ku naf waayay ninkii, xaaskii, ilmihii walaalkii dhalay iyo walaalkiiba halkaas ayay ugu dambeyn naftoodii kusoo idlaatay. adigu daawade sheekadan iyo qisadanba waa daawatay, maxay kuula eg tahay? ma dhab mase dhalanteed? ra'yigaaga ka dhanka ah muuqaalkan qaybta commentiga ayaad nagula wadaagi kartaan. waad ku mahadsantihiin alaaba daawashada muuqaalkan. haddii se tahay booqashadaada ugu horreysay, waxaan si xushmadi ku dhaantay kaga codsanaya inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe inoo saartaan. sidoo kale waxaan idinka codsanaya inaad muuqaalka inoo qurxisaan oo aad laagta iyo sheerta intaba aad soo keen dartaan si muuqaalkeena uu gaaro saaxiibo adigu kale qalbi wanaagsan. muuqaalka mid lamid ah inta kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nabadiino.